magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu soo bandhigay buug la magac baxay Duni kaas oo maskaxda qoraalka iyo sidoo kale macluumaadka ku jira buugani ay ka soo maaxatay maskaxda qoraada yar gabar wax baratay Aisha Ali Shire oo ah qoraaga iyo sidoo kale muallifka buugan la magac baxay Duni madasha buugga lagu soo bandhigay oo ahayd xarunta dhexe ee jaamacadda caafimaadka Al-Hayaat degmada Hodoland gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan kuwaas oo ka kala socday bahda akhriska iyo qoraalka ururada bulshada rayidka ah iyo si la mid ah macadka horumarinta qoyska ee Guryasamo dhiganahan oo soo bandhigidiisa iyo si la mid ah inuu dunida ku soo biiro soo gurguuranaysay muddo 4 sano ayaa waxaa la soo bilaabay 2019 markaas oo Aisha ay qalinka u qaadatay in buugga Duni oo dunidan weyn ku soo biiro tan iyo 2019 buugga Duni waxa uu geed soo cuskado habeenba meel ku soo hoydo aroor walbaana oo meel ka sii kalaho waxa ugu dambeyntiisii xuduntii soo bandhigistiisa ay noqotay xarunta jaamacadda Al-Hayaat oo ahayd halkii lagu soo bandhigay buuggan la magac baxay Duni oo ay Aisha qortay macluumaadka buuggan ku jira oo ahaa kuwa xasaasi ah si la mid ah waxgal u ah bulshada ayaana waxaa ka mid ahaa habdhaqanka iyo dabeecadaha kala duwan ee dunida buuggan oo intiisa badan ka hadlaya dumarka iyo waxyaabaha ku xeendaaban Aisha ayaa sharaxaad ka bixisay magaca buugga si la mid ah humaagta ka soo muuqata page-ka kore ama garbadka kore ee page-ka waxa ay kala jeedo iyo si la mid ah macnaha xaqiiqiyan ku duugan in magacan iyo humaagtan ay qaadato dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladan heerkeedu sareysay ayaa bogaadin baraaro hambalyo iyo si la mid ah marxabeynba u diray qoraa sare Aisha Ali Shire oo ah gabar daayar ah maskaxdeedana ay tahay muddo jir madaxdii iyo si la mid ah marti sharaftii halkaas ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa aasaasaha iyo si la mid ah gudoomiyaha macadka horumarinta qoyska ee Guryasamo si la mid ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Al-Hayaat oo ku hadlayay magaca ardayda gudoomiyaha jaamacadda iyo si la mid ah dhammaan howlwadeenada jaamacadda si la mid ah waxaa halkaasi goobjoog ka ahaa Cabduladiif Xirsi Yuusuf oo ah aasaasaha iyo si la mid ah maamulka ugu sareeya ee macadka Mind Success Institute oo ah macad ka shaqeeya horumarinta insaaniga ama maskaxda ama dhisida iyo horumarinta maskaxda bini'aadamka marka Aisha buuggaani haduu yahay kii u horeeyay ee qortay waxaan ka rajaynaynaa kii u dambeeyay ee qortay inaanu noqon uu buugaag badan ay qori doonto inuu wadada u xaari doonaan ka rajaynayaa inteena kalena waa rajayn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo buuggaas inanta yar muddada ay qoraysay juhdiga iyo dadaalka fara badan ay gelisay inaan ku dhiirin gelin doono aan ka qaadan doono haduu Ilaahay yiraahdo Dr. Yusuf Maxamed oo ah xogayaha ururka waxbarashada ee Luuq Ganaane oo asagana xafladda lagu marti qaaday ayaa markaasi qayb ka ahaa dadkii lagu casuumay Aisha runtii aad bay u maasan tahay kun iyo kow jeer waa dabcan si gaar ah ay noo saameynaysaa anaga marka la yiraahdo bahda saxaafadda bahda dawladda bahda dadku waa kala qayb bah weeyaan anaga laakiin waxaan isku baahnahay dhammaan asxaabta halkan fadhiida oo ah akhriska iyo naadiga iyo waxbarashada iyo horumarinta dadkaas aan isku baahnahay aad baan iskugu farxaynaa Aisha buuggeeda muhiimad gaar ah ayuu noo leeyahay runtii Aisha Ilaahay ha xafido runtii waxaan dareemi karaa guusha maanta ay gaartay waa mid hooyadeed iyo aabaheed waalidka dhalay ay qayb ka yihiin
waan ugu duceynaynaa allah xafido waqtiga iyo juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyeen in ay hami sare yeelato maanta mansabkan makaankan ay timaadii iskamaysa imaanin waxay ku timaadii hami sare si la mid ah Farxiyo Muxidiin lama filaan hooyada jaceylka ayaa bandhiga buugani marxabo iyo sidoo kale salaan u dirtay ayadoona marti sharaftii ka soo qayb gashay qayb ka ahayd runtii wax kasta oo la qoro faa'iido gaar ah ay leeyihiin si gaar ah markii waxyaabaha nolosha quseeya saldhig u ah badbaadada iyo jiritaanka bini'aadamka gaar ahaan nolosha saldhigeeda ama udub dhaxaadka dadku ahaay haweenka garwadeenka ay ka yihiin markii wax laga qoro waxaan isleeyahay way ka sii xiisa xamaasad iyo xoog badan tahay waxyaabaha kale ee la qoro waxyaabaha buuggan hadda intaan isha marinayay aniga si gaara ka farxi ahaan ii soo jiitay waxaa ka mid ah waayihii dambe waxaan u maleynayaa feminist waxa la dhahaa hawada naga qabsaday hablo yaryaro waxaa soo baxay dagaal cer iyo dhul cid ay kula jiraan aadan garanaynin oo isdheririnta iyo maaragtay marin habaabinta iyo xaqa iyo xuquuqda ay raadinayaan oo aanan garanayn meel ay u doonayaan in yacni ay badanaa social media haystaan taana runtii waxa ay runtii aan isleeyahay hadda buugga intaan isha marinayay sii xoojinaysaa waxaa qayb ka ah in yacni xuquuqda islaamka uu siiyey gabdhaha muslimaadka Titorese Idil oo iyaduna qayb ka ah horumarinta iyo sidoo kale ka faaloshaha arrimaha qoyska iyo horumarinta nolosha ayaa si la mid ah halkaasi ku sugneed ayadoo kalimadeeda xamaasadda iyo qeyrada xambaarsaneed la wadaagtay Aisha Ali Shire qoraaga buuggan la magac baxay Duni buug Soomaali maalin walba uu soo baxo waxay kaalin ka qaadanaysaa wadanka horumarkiisa iyo aqoontiisa inay hor u socdaan waana aaminsanahay dhalinyarada inta fadhiyaan dhalinyaro badan oo fikrado badan iyo aqoon badan ay ku duugan tahay laakiin cabsi iyo isweydiin maanta dhan la fadhiyaan wallahi waxaan jeclahay inaan soo bandhigtid ama inaan umadaada ugu faa'iideysid waxaan rajeynayaa inay u faa'iideyn doonaan inta aad wax qori lahayd ko waxa ka horeysa janjarada koowaad inaa caado akhris alaatid markaas aad dareemi doontaa macaanka buugaagta ay leeyihiin iyo macaanka ay leedahay cilmigaaga inaad dadka uga dhaxal tagtid mar walba waxaa jirta maamaha heeso ma kutuba qarra wax walba oo qortid jiil dambe aad ka faa'iideysan doono buugaag badan oo dadkii qoreen hadda ay dhinteen waxaa jira anaga hadda aad ka faa'iideysano taas waxay noqonaysaa wax sharaf ku ah marti sharaf iyo si la mid ah dad qiimahooda u sareeyo ayaana qayb buuxda ka ahaa xafladan oo ahayd mid loo dhamaa dad badanna ay ka soo qayb galeen waxaana halkaasi laga wada qiray in Aisha ay buuxisay boos banaan si la midana ay tahay maskax iyo iftiin u soo koraya bulshada Soomaaliyeed Aisha oo dareenkeeda ugu dambeyntii iyo guntiga gabagabadii munaasabadan soo bandhigtay ayaa halkaasi ka soo jeedisay tiirarkii uu soo cuskaday buuggan Duni ayadoo si la mid ah u mahad celisay dadkii garabka iyo gaashaanka oo ahaa buuggan aad u jeedin Duni wuxuu qaatay qoritaankiisa muddo 4 sano ah waxaan soo bilaabay sanadii 2019kii bishiisii 3aad kaasi oo anigoo riyooyin badan ay gubayaan caqabado badan arkayo mararka qaarna ay dhiceyso xataa waxbarashada lacag ku bartay inaa waayo aan hore hadaran u sii socdo buuggan aad u jeedin muddada intaas leeg ayuu socday sababtaan u qoray buuggan waxay tahay aniga ahaan ka dumar ahaan caqabadaha la kulmay dad kaleeto gabdho kale caqabadaha ku arkay qaab kale loo dhaqmayo family ahaan sida gabadha loo ixtiraameen hoolaha culeyska badan ay heeso marnaba aan la ogeyn sida wax u qabanayso la dafirayo mararka qaar xataa walaalaha la dhashay aysan u qorin abaayo macaanto ayadoo jikada ku jirto hooshi qabanayso guriga kala hagaajinayso wax walba heegu maalin walbana dhididkeeda dhulka ku daadanayo ay haddana u quurin kalmad waa maxsanta xayaata waxaan leeyahay buugaasi sababta ugu weyn oo qoray taasi ahayd